بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dadka Soomaaliyeed meel walba oo joogtaan waa idin salaamay magacaygu waa Abduqaadir halka aad nagala socotaanne waa Beledweyne City nin odaya oo maalmo dhaweed ka hadlay qaraxii ka dhacay degmada Maxaas kuna sheegay in uu qaraxaasu ahaa shirqool ee la maleegay oo lagu baabi'inayay ciidan kulley hayb ahaan asiga ka soo jeeda ama ciidankii xildhibaan Jacfar oo meesha geeyay oo aan isleeyahay waa ninka kaliya runtii dagaalka argagixisada uu dhab ka yahay markii dhankan laga soo tago dhanka reer Hiiraan sidoo kale waxaa jira nin kale oo xildhibaan oo gobolka Shabeellada Dhexe ka dagaalama ninkaas oo asaguna ah ninka kaliya sida dhabta ula dagaalamay argagixisada welina u taagan golaha baarlamaanka maalintuu ka hadlayane wax badan sheegay ninkan odaga aan u soo noqonay wuxuu uga hadlay si caaqnimo ah oo caqli aan ku jirin oo yacni iska I don't know waxaan ku tilmaamo maqaan dhibaata asiga iska haysata mushkiladda haysatane waa on kulley walaalo badan oo ila soo hadlay waa ii sheegeen in ninkaasu yacni uu yahay oona ahayn yacni qof looma jawaabi karo yacni isku soo duub ani wax kale ma sheegayo laakiin qof aan mudnayn waxa uu sheegayo yacni in looga falceliyo oo looga jawaabo qof aan mudnayn inuu yahay nin walaala oo video ka soo duubay oo halkan soo gelinay ayaa ka hadlay arrinkaas iyo sida uu ugu gafay ninkii odaga ahaa ayuu wuxuu ku tilmaamayaa darag iska celi iyo rabbi ka cabso meel islaama martay Soomaalidu tiraahdaa aniga iska kay celisho asoon rabbina ka baqay wax dhibaato uma arko oo yacni xaqiiqda ka wareeganaya xaqiiqda asoo ka leexanaya aniga iska kay celisho wuxuu rabana ha sheego aniga hadda maanta waa video ugu dambeeyay oo u soo duubo waa horta ninka odaga waa kii ugu dambeeyay oo aan u soo duubo noqonaya haddii aan la wadwado yacni waxay noqonaysaa in aniga asagu isku jinnahay da ahaan nin iga weyn weyn waa nin oday oo adiga da 60 ku jira hase ahaatee garashadiisu waxay ka reebi waysa xitaa qof walaala oo markaa kula hadlaya ee kule war sidaa wax uma dhicin sidaana wax ma ahane ka daa oo aanan asagana gaf u geysanin oo baahalo iyo ey iyo baahale daanyeer iyo wax adiga xashafo ku tilmaamo garashadii ka reebi waysay la ajnigeed ayaan uga haray ana ka haray marka waxaan rabaa inaan dhageysano bal kaliib oo soo duubay in aan wada dhageysano kadibna adinku aad go'aamisin wixii dawacmadow iyo dilay ku royahay ma garanaysa rifrif iyo anyaanyuf iyo wixii hadalkayga ka bixin karay wax dadka aan aqaanin waxay wax ka dhigayeen laba adiga ala kula laba aan kala soo qaado laba nin oo midna waxa uu leeyahay ninna mursay ayaa waxay ka sameeyeen hadalkaygii oo hadalkaygu hadda ogaada hadalkaygu anigu waa suntan yahay sumad buu leeyahay YouTube ku jira in ay macna kala ka bixiyaan iyagoo oo sameynaya laa ilaaha illa allah haddaan lagu darin macna kala leedahay waxay ka goosteen sida waxaan rabaa inaan ku sifeeyo waxaa uga jeedaa qeexis fahamsiin laa ilaaha marka la yidhaha waa ilaah ma jiro illa allah marka la raaciyana waayahay inta aan uga gudubnay ninka walaalka kulley anigu gaf uma geysanayo laakiin garashadiisa ayuu hadlay qofkuna markii uu hadlo ayaa waxa la ogaanayaa halka aqligiisu inta uu gaarsiisan yahay iyo halka uu ku jaango'an yahay aniga waa ii qiyaasan yahay dib dambana uga hadli maayo taasi waa qodob waxa laakiin dhibaato ah oo aniga aan yacni ka walwalay markaan xalay dhageystay ninka walaalka ah oo caqli celi isdhahayay soo tii la yiri Soomaalidu ku maahmaahday ma taga walaalkiisa uu afdhaqa
ma tagaa walaalkiisa waa afdhaqa yacni caliyadii iyo qashinkii uu dadka ku halleeyey walaalkii asaga la dhashay baa ka mayro gacanta ka marshay walaalkii ayuuna daba galay oo wuxuu ka dhigay waxaan jirin asiga dhanba marka soomaaliyey waa idin salaamayaa qaraxaasne wuxuu ka yimiday halkii ciidankiisu joogay ayuu ka yimid anigoon lahayn ma matelayo dad ma mateliyo wuxuuna matelin qabiilkuuna matelin sumcad qofku hadduu sumcad qabiilkiisa ku dhex leeyahay ama dadkiisa oo sumcad iyo qiyam uu ku dhex leeyahay waa la dhihi karaa qabiilkii markaa waa la taaba karaa waa la dhihi karaa war waxa kan xageed ka keenteen naga horwareeji ama iska horwareejiya oo nin ummaddan mateli kara keensada waa la dhihi karaa hadduu yahay suldaan oo kale hadduu yahay nin dhallinyaro ah oo firfircoon oo yacni meeshuu joogo dadkiisa ku mateli kara hadduu yahay intaba laakiin waxaa muuqata amaba informationkeeda aan helay ninkaa walaalow inuu yahay qof maaragtay iska normal adiga lama dhihi karo wax oo maaragtay waxaan ku tilmaamana ma garanayo laakiin waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed informationada saxda waxaad ka helaysaan halka ay yaaliin ama dad saxa oo si saxa u soo gudbi kara ka dhageysta aad iyo aad u mahadsantihiin wadooyinka uu qaraxaasu soo maray kaliya waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u daayo ayagu bal inay soo baaraan soona ogaadaan asagu wuxuu ku sheegayaa wadada Moqokuri waa dhankii Moqokuri iyo jahada qaraxu ka yimid iyo jahada laga soo abaabulay iyo meesha laga tilmaamayay oo laga soo ogaaday oo la sheegay xitaa dadka qaar waxay ku leeyihiin waaba la sheegaba hal maalin ayaa la sii ogaayay in meesha qataru ka soo socota dadka qaar dhahaya waana sababta dadka loo xirxiray dad badanaana loo xirxiray arrinkaas baaritaankeedu ugu socdaa ka hor dhici mayno asaga laftirkiisa meeshuu salka dhigaan arkaynaa laakiin yayna dad iska ducufo ama dad iska qalbi hooseeya ee caadifad iyo wax ka tanbadiyeen sawirka yayna dhinac kale u leexin midda kale oo aan raba inaan ku soo ganaanudo wuxuu yiri ciidamada meesha la geeyay waxa loo geeyay inay maxaas difaacaan still waa taagan yahay ka war wariya ceel qooxla dagaalkii ka dhacay ciidanku meeshay joogeen maxaas ma ciidan ay tawanta ciidan may u baahan tahay maxaas ma ciidan u baahan amxaara xitaa joogta adoo wax kale iska daa amxaara joogta oo waxa jooga ciidan military oo 700 ah oo aan ka dhaqaaqina jooga yacni maxaas oo la qabsado waxay ka dhigan tahay hiiraan oo la qabsaday ka dhigan tahay oo nimankii yar yaraa gacanta u gashay maxaas marka Ethiopiana jooga ciidan uma baahna ceel qooxle shantii subaxnimo oo dagaalku bilaawday hal saaco habeenkii dambaana dagaalku waa istaagay ilaa intaas gurmada socday teedaan ka tag hees ka keen coomaad ka keen haddii alla ku roon yahay beerayo baal ka keen intaasoo dhan ciidana la soo daadgurayo oo la keenayo oo la gelinayo ayaguna ciidan ay waxay ka keenayeen ilaa xarar dheere ka keeneen gowar ilaa xarar dheere ciidankii ka soo baxay dagaalkii ku soo gaaray markaasuu wuxuu leeyahay asoo maxaas jooga waxay difaacayeen maxaas difaaca uga jiro hiiraan hal nin ma ku dhintay oo nimankii yimid xamar ka yimid waa walaalahan waa soo dhaweynayna hal nin oo hiiraan uga dhintay ama ku dhaawacmay xitaa ma jira markii qaraxa laga tago dadka waxaad u sheegaysiin laa xawla walaa quwwata war waxa loo baahan yahay gurmadka la dalbanayo oo sambalolsha uu ka hadlay waa in yacni dagaalka si isku mida gobollada uga bilowdo oo culayska aan loogu sugin hal gobol aanan culayska loogu sugine dagaalku si yacni garba simana oo gobollada galgaduud oo kale ka bilowdo mudug oo kale ka bilowdo shabeellada dhexe oo kale ka bilowdo waa ogeed inta shabeellada dhexe intii la sugayay oo markii la galshay ayaga gobolkii markii la galshay shabeellada dhexe haddana dadkii reer hiiraan ay uga sii daba tageen ayagiina ay xagga ka soo galeen oo halka iyo mudug layskula ceyrshay ilaa haddana degmooyinka ay gobolka galgaduud uga sugan yihiin waxa ka mid ah degmada ceelbuur markii loo dhowaado ceelbuur amaba la qabtayne waa la joogi waay yaa
waa la joogi waaye sabab kastaba ha ku dhacdo xoogaa meel geesa ha ku taalo yacni ciidan dowladeed ama macawisley geesaha kaa jirta oo kuusoo gurmanaysa ayay jirin daruufo badan baa iska jira waa ognaa waxaasoo dhan laakiin dacuufanimada ninkan oo u hadlayo iyo awoodda goonida ah uu keligiis isisiinayo maxaasaan difaaca war maxaas maxaa waay ceel baalig meesha la dhihi jiray ceel jiqow meeshii la dhihi jiray ee nimankii 70 nin looga diray argagixisada ahaa waay awga soo qayb geli wayse 40 daqiiqo ku jirtaa ceel jiqow markaad maxaas joogto 40 daqiiqo gaway ku jirtaa waay aduu ma wayse waxaad naga gada ummadda u sheegaysa fiir anigu weynaad tahay niyow xisho anigu waa kaa xishoonaya kulley ku caayi maayo waa ku salaamaya insha allah salaam calaykum